waa tahay daawadayaal dhawaan waxaa ku yimid booqasho magaalada Montreal ee waddanka Canada wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dalka Soomaaliya waa mudane Maxamed Omar Salaad oo isoo ka tirsan asal ahaan jaalida Soomaalida ee ku nool waddanka Canada haddana ah wasiirka ka tirsan dawladda Soomaaliya shir ayuu u yimid oo ka soo qayb qaatay marti ayuu u yahay waxaan jeclahay inaan su'aal iyo laba ka weydiiyo waxyaabihii uu kala kulmay iyo qaabku sidoo ahaa mudane Omar ku soo dhawow muuqaalka Soomaalida adoo mahadsan aad baa mahadsan booqashada aad ku timid waddanka Canada maxay salka ku haysaa gaar ahaan magaalada Montreal bal wax yar waxay tahay ujeedada nala qaybso bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed walaal waxaan imid Montreal xafiiskooda headquarterka ICAO waxaan u imid in aan hay'adaasi wada xisaabtan aan sameeyno insha Allah taala projectyo badan ayaan Soomaaliya u soo isla soo sameeynay ee kamid ahayd in hawadii Soomaaliya maamulkeeda loo soo wareejiyo waddanka gudihiisa marka waxaan ku sameeynaa evaluation projectigaasi sida aan u qabanay iyo sida projectyada kale ee hay'adda ay noo hayso dhamaantood aan u hagaajin lahayn sidii hore si ka wanaagsan aan ugu qaban lahayn aan ka wada tashanayna waan gartay maxaa kaaga hirgalay maxaa kaaga hagaagay maadaama aad shaqo badan qabateen oo haweenkii Soomaalida hawadeeda soo celiseen isla markaasna diyaaradihii laga hogaamiyo lagana hago Muqdisho maxaa natiijo oo idinka soo baxay oo nala qaybsanaysaa maanta hay'adda ICAO oo markii hore sida aan warka ku hayno runtii ahayd hay'ad si wanaagsan ula shaqeysa waddanka laakiin marka negotiationka iyo wax lagu jiro ama maamulka ahayd iyada u madax banaaneed inay waxyaabo badan sameeyso ayaa hadda waxaan arkaynaa in xiriirka naga dhaxeeyo uu yahay mid tixgelin aad u weyn la siinayo dawladda Soomaaliya go'aanada dhamaantood inay dawladda Soomaaliya gaarayso iyagana support ay inoo noqdeen oo ina support gareeyaan oo kaliya marka runtii sida aan aragnay wada shaqaynteena aad iyo aad ay u wanaagsan tahay waxay galeen roolkii loo baahnaa markii horeba inay galaan oo ahaa inay la taliyaal noo noqdaan laakiin innaga aan noqono dawladda Soomaaliya ay noqoto dawladda go'aanka iska leh decisionka gaari karto marka alxamdulillah waxaan aad ugu faraxsanahay inay hay'addu garowsatay oo ogoshahay inay noqoto la taliye innagana aan noqono dadkii go'aanka lahaa marka taas ayaa hadda cad waan gartay dadku aad bay idinku haweyn yihiin Soomaalida meel ay joogaanba gaar ahaan wasaaradda sharaf weyn baa runtii u soo hoyatay intii aad ku guuleysteen inaad soo celisaan hawada maxaad u soo jeedinaysaa maxaad ku oranaysaa maxaad la qaybsanaysaa dadka Soomaaliyeed ee iyagu daawanaya barnaamijka meel walba ha ahaato kuwa ka daawanaya YouTube haday tahay social media iyo telefishinka intaba maxaad ku oran lahayd Maxamed waa su'aal aad iyo wanaagsan marka ugu horeysa dadka Soomaalida waxa cad intooda dibadda joogtay gudaha qof kasta inuu jecel yahay dawladnimada iyo waddanka inuu dib u soo noqdo iyada oo lagu kala fikir duwan yahay mararka qaar kood sidii meeshaas lagu gaari lahaa marka waxaan dhilahay dadkeena dibadda jooga ama daawanaya dhamaan in ay roolkaasi si wanaagsan oo sharaf leh Soomaalinimo on mucaaradna ahayn laakiin ay sheegi kara dhaliiladeena sheegi kara in ay nagu taageeraan maskaxda dibadda naga jirto iyo banaanka naga joogtana ay dib u soo celiyaan oo waddanka nagala shaqeeyana dawladda ka raali noqdo mudane Maxamed Salaad Omar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dalka Soomaaliya aad baad ugu mahadsantahay waqtiga qaaligood siisay waxaan ku leenahay adiga iyo dawladda intaba howlka madaalooyinow cidii wali waayaan hore u socda si wada dadweynaha Soomaalidu wax badan bay idinka rajeynayaan ama idinka filayaan muujiya wanaaga iyo waxa la idinka fadhiyo inaad qabataan aad baad u mahadsantahay mudane aad iyo aad baa u mahadsantahay Maxamed Baraade aad